na Quraysh bay ka iibiyeen oo yidhahdeen waa tii berigii Badr wax laydinkaga laayay iyo aabihii waa arayo anuu saxaabiye ka iibinaa bay yidhahdeen laba Quraysh ka mid ah ayay ka iibiyeen oo yidhahdeen annagana waxoogaa na siiya kuwana aabayaashii ugu aara dhacdadaasi markay dhacday labadii Quraysh laga iibiyey mid ka mid oo xidhan ayaa markii la dilayay wuxuu yidhi muus ha la siiyo muusku waa baalka lagu xeerxeerto shayfin material lagu sheefgaraysto waa la siiyey muuskii yaraa isagoo hayaa kuwii dilayay ilmo yaroo ay dhaleen baa u yimi oo dhabta ka soo fuulay gabadhii ilmaha yar dhashay baa gergariirtay markaasi oo naxday dee ninkii ay dilayeen ee dilka ugu xidhnaayo oo middi yarna haysta ayaa ilmaheediina uu dhabta ka fuulay dabeetana wuxuu ku yidhi waxba ha cabsoon maa kuntu liafcala hada ma inaan dilaabaad ka baqatay buu ha ka cabsoon inaan kan dilo waxay yidhahdeen culimmadu qisadan waxaa laga faa'iidaya alwafaa bilcuhuud xataa ka ku khiyaameeyey inaan la khiyaamaynin kuwii khiyaameeye soo xidhay iibiyey inaan ilmo carruuro ay dhaleen loo dilin ilmo carruura oo ay dhaleen iyaba waa kuway dilaya hadhowa maxaa yaryarkooda u noolaanayaan inaad odhanin islaamku kaama yaqaan walidaalika baa saxaabiga kani isagoo dilu xidhan oo la rabo in la dilo oo ilmahooda yar ay ku soo cararay oo dhagtiisu ku dhacay isagoo middi haysta markay islaantii gariirtay wuxuu ku yidhi maa kuntu liafcala haada ha u malaynin inaan waxaa samayn kara anugu ma samaynayo qisada labadaa tilmaamaya waxay tahay iyadoo nebiga taasi ku dhacday ayaa haddana qolo kale